qurba joog reer Britain ayaa waxa lagu soo waramayaa inuu isu soo taagay jagada madaxweynenimada wadanka Soomaaliya isagoo sheegay in uu tartami doono jagadaasi marka doorashooyinka madaxtinimadu ay ka dhacaan wadanka Soomaaliya. ninkaasi oo la yiraahdo Maxamed Cabdi Faarax Qambi ayaa waxa lagu soo waramayaa dad aad u fara badan oo taageerayaashiisa inay isugu soo baxeen magaalada Birmingham waxaana la sheegayaa dadkaasi taageerayay inuu u jeediyay qodbad. wariyahayaga halka nooga soo warama Daahir Ismaaciil Xaaji Aadan ayaa warkan inoo soo diray. xafladaad u ballaaran ayaa waxa lagu qabtay magaalada Birmingham oo magaalada madaxda labaad ee dalkan Ingiriiska. xafladaasi oo uu si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu u sharaxan yahay tartanka madaxweynenimada ee dalka Soomaaliya. Maxamed Cabdi Faarax Qambi oo u tartamaya jagada madaxweynenimada ee dalka Soomaaliya bisha August ee fooda inagu soo haysa. waxa aan jecelahay inaan wax idinka maqashiyo qodbadii halkaasi ay ka soo kala jeediyeen dadweynihii halkaasi goobjoogka ahaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay oo ku mahadsantihiin inaad ka soo qayb gasheen xafladan. sida la idiin sheegay xafladan waxay ku saabsan tahay musharaxa magaalada nala degan gartay inuu isu sharxo xilka madaxweynaha Soomaaliya. mudan yahay marweyn waxaa sharaf weyn noo ah inaan halkan kala soo qayb galno xafladda lagu soo dhaweynayo musharaxa madaxweynaha mudane Maxamed Cabdi Faarax Qambi. marka waan aaminsanahay Maxamed Faarax Qambi waa nin dhalinyaro ah, waa nin nadiif ah, waa nin aan dambi lahayn, waa nin bari ah dhinac kasta, waa ugu qalmaa inuu noqdo madaxweyne Soomaaliyeed. waxaana ka raba oo keliya inaan taageerno maamulka Soomaaliya sida odayaasha isaga kamid mar haddaan kamid ahay anuu magacood ku hadlaya waxaan sida xalla ugu soo bilinaa madaxweynaha inuu noqdo mustaqbalka Maxamed Faarax Qambi. waxaan maaragtay ku faraxsanahay musharaxa Maxamed Cabdi Faarax Qambi xafladiisa inaan ka soo qayb galo. waxaan u rajaynayaa inuu maaragtay noqdo mid ku guuleysta madaxweynaha dalka Soomaaliya. لكن البنجلة حتى لو تهوب الكروي في البوس معي وده كي محمد تجال ديال إنجليز قصدي إنجليز تجال قالوا واللي تمرز قالوا وسهوس لكم في يوم لكم في هوس لكم في نام تيجنا. ياش أو وح نقول تكلمنا إن مجالات وتياشي مجالات الجنازات كي إهل كحوا Soomaaliyeed ونور الدنيا وحنور الدنيا وحوي وإن محمد قمبي مدحوينه in la taageero garab la siiyo. waxa isaguna halkaasi ka hadlay oo isaguna goobjoog ka ahaa Ayub Khan oo isaguna ah wasiirka adeega jaaliyadaha iyo amniga ee magaalada Birmingham. which is living in the Western society that wants to give up this opportunity to go into Somalia Republic to stand for justice, equality and transparency is a big step. And I certainly hope that brothers and sisters can support Muhammad for taking that initiative. I think it's very important. waxa halkaasi isagoo markaasi ka hadlay murashaxa madaxweynenimada oo markaasi la sugayay khudbadiisii Maxamed Cabdi Faarax Qambi. Maxamed Cabdi Faarax Qambi isku sheego magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdi Faarax Qambi. waxaan ku dhashay magaalada Xamar isbitaalka Martini. waxaan ka mid ahay musharaxiinta isu soo taagay doorashada hoggaanka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya gaar ahaan jagada madaxweynenimada. kadib markaan arkay inay lagama maarmaan tahay arrintaas barnaamijka siyaasadeed aan ku talagalay inaan ku maamulo wadankayga soo celinta kalsoonida muwaadiniinta Soomaaliyeed, imrinta wadaxaajoodka iyo nabadda, damaanad qaadinta xuquuqda muwaadinimada Soomaaliyeed, isu keenidda ummadda hal calan iyo hal hoggaan oo keliya, inaan hal calan yeelano oo calankaas buluuga ah iyo hal hoggaan taabo kelino barnaamijyada tacliimeed, caafimaad, samatabixineed, samafal iyo dib u dejin, adkeynta ammaanka dhulweynaha Soomaaliyeed bari bad iyo cirba. sidaa darteed haldhigaygu ha ahaado aan isku tashano, isku duubnaano, qof kalena yeelan sugi. waxaan ka codsanayaa dowladda Soomaaliyeed inay doorashada dib u dhigin. daawadayaal xafladda ka bacdi waxaan markaasi aan wareysi la yeeshay sidii xafladdu ay u dhacday ee murashaxa madaxweynaha dalka Soomaaliya
Mr. Qambi. بسم الله الرحمن الرحيم حفلة maanta la isku yimid waxay ahayd xaflad aad u cajaa'ib badan dadweynaha ka soo qayb galay rag iyo dumarba taasina waxay muujinaysaa baahida aan ku dirmi gareynayay in aan noqdo musharaxa madaxweynaha Soomaaliya talaabada ku xigta waxa weeye in aan abaabulkii musharaxnimo inaan sameeyo campaign-kii aan bilaabo kolley waxaan tagi doonaa anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada Birmingham waxaan runtii aad iyo aad u soo dhaweynaynaa musharaxa jagada madaxweynenimada Maxamed Faarax Qambi Daahir Ismaaciil Xajaadan iyo Universal TV